السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أصحابك وحن جنال كين وليا ومدى سود وتحنيني أفراد يكون هبين فضلا هدي أدنو عسوت سود سبسكرايب صار كم بلاك أنا ركمو سي يكوسو جاران وحول بأن صادق نجيب بديبا هدي أدهورين ولا جوكتينا لايك صار سينا شركة ولا بدك أصحاب تابا كنا ديو فكر كيف يعني كنا سوق قرقات هو سيكون متيلا مركز دعوة كذي أنا جن سي أي دي رجلين قطو ما السنة هدرنا دعوة شو عن habeenkii labaad waxa wali noo socotay sheekadii ninkii taajirka iyo cilmi habeenkii labaad markii la gaaray ayaa Dunayzad ku tiri walaasheeda Shahrazad abaayo imaad noo dhameystay sheekadii ninkii taajirka ahaa iyo cilmigii iyo wixii kala qabsaday ninkii odayga ahaa iyo deeradii markaas ayay Shahrazad dhahday jacayl iyo sharaf ayay tahay inaan idin dhageystino haddii uu boqorka markaas ayuu boqorkii oo mar hore sheekada isku diyaariyay noo sheekada oo dhamay markaas ayay Shahrazad tiri waxa ay soo gaartay boqorow markii odaygii arkay dibiga oo weynayo ayuu ninkii xoolaha muslimka uga ahaa ku yiri war dibigaan iga wad oo mid kale cilfiidkiina wuxuu la yaaban yahay sheekada yaabkeeda iyo sidii wax u socdaan ninkii odayga ahaa wuxuu yiri sayidkii jiniyahow waxaas oo dhan markay dhacayaan naagteedii weyna daawanaysay waxayna leedahay dibigaan qal wuu buuran yahay ee qal iyo wixii la mid ah laakiin aniga dibiga eegmadiisa markaan ka naxay ayaan iska sii daayay waxaana ku dhahay ninkii xoolaha ay qaabilsanaa dibigaan iga wad waan ka yaabanahay subaxii markii la gaaray waxaa ii yimid ninkii xoolaha ay qaabilsanaa wuxuuna igu yidhi bishaarayso markaas ayaan waxaan dhahay maxaa dhacay wuxuu ugu yidhi shalay markii aad dibiga iga wad ka tidhi waan waday waxaan geeyey gurigeena waxaa ii joogto gabar yar aan aniga dhalay oo ayadoo yar sixirka baratay markii aan dibiga gurigii geeyey oo ay aragtay ayay wejigii ka daboolatay kadibna qosashay haddana oysay markaas ayay igu tidhi aabo maxaad nagu soo gelinaysaa nimanka ajnabiganaga ah anigoo aanan ogeyn anigoo yaaban ayaan waxaan ku dhahay aawa nimanka aad sheegayso midda kale maxaad la qosashay oo haddana la oysay waxay igu tiri dibigan aad u jeedo waa wiilkii sayidkaaga wuuna sixran yahay waxaana sixirtay naagtuu aabihiisa qabo taas waa sababta aan u qoslay sababta aan u ooyna waxay tahay loodii la qalayna waxay ahayd hooyadiisa aniga markii aan hadalkaas gabadhii ka maqlay waan aamini waayey adiga ayaan ku dhimid markaas ayuu odaygii yidhi jiniyahow markii aan maqlay hadalkii ninkii ii qaabilsanaa xoolaha ayaan degdeg gurigiisa ku aaday waxaana u tagay gabadhiisa waxaana weydiiyey marunbaa wuxuu aabbahaaga markaas ayay igu tiri haa waa runteeda dibigan waa wiilkaaga waana beerkaaga gabalkiisa anigii waan iska ooyey waxaana gabadhii ku dhahay haddaad wiilkayga sixirka iiga furto waxaan ku siin doonaa maalkayga oo dhan markaas ayay gabadhii igu tiri aniga maalkaaga dan kama lihin laba shuruudood ayaan wataa haddaad ii samayso wiilkaaga sixirka waan ka furayaa shartii koowaad wuxuu yahay inaad wiilkaaga ii furiso kan labaadna wuxuu yahay in aan naagtaada sixiro waayo kama aamin qabo dhagarteeda markaas ayaan gabadhii ku dhahay intaas aad sheegto waan kuu samaynayaa waxaana kuu sii dheer inaan ku siiyo hantideeda oo dhan naagtaanna sidaad doonta ka yeel markay hadalkaygii maqashay ayay waxay soo qaadatay dheri yar oo meesha yaalay waxayna ku shubtay xoogaa biyo ah iyadoo wax ku akhrisay kadibna biyihii ayay waxay ku fardhisay dibigii waxayna dhahday dibiyahow haddii allah adoo dibi ah ku abuuray ha isbeddelin oo dibigaaga iska ahow haddiise aad sixran tahayna ku soo laabo abuurkaagii hore idinka ilaahay markaas ayuu dibigii dhalaalay wuxuuna isku beddelay insaan markaas ayaan isku duubay markaan arkay inuu wiilkaygii yahay waxaana ku dhahay alaan kugu dhaarshe ii sheekee siday wax u dhaceen markaas ayuu sheekadii bilaaw ilaa dhammaad iiga sheekeeyey iyo waxa ay ku samaysay naagtaydii in adeerteeda ahayd markaas ayaan wiilkii gabadhii u guuriyey iyadana waxay sixirtay naagtaydii oo deeradaan isku beddeshay anigana waan iskaga soo tegay dhulkii oo dhan si ay wiilkayga iyo gabadhaas nabadgelyo ugu noolaadaan anigoo jidkaan marayo ayaan waxaan arkay ninkaan meesha cidlada ah keligii fadhiya oo oynaya kadibna markaan waraystay ayuu qisadii qabsatay iyo siday wax u dhaceen iga sheekeeyey jiniyahow hadday sheekadeedu ku cajib gelisay ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel iibay markaas ayuu jinigii la yaabay sheekada ninka odayga ah iyo deerada ka dhaxaysay wuxuuna ku jeestay deeradii asigoo yidhi marunbaa wuxuu sheegayo odaygan markaas ayay madaxa raxday haa markaas ayuu jinigii yidhi wallaahi waa sheeko cajiib ah wayna ay cajib gelisay marka ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel waan ku hibeeyey markuu jinigii hadalkaas yidhi ayaa waxaa hadlay ninkii watay labadii ay jiniyahow haddii aan kaga sheekeeyo sheekadayda oo ay ku cajib geliso ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel ma ii hibaynaysaa markaas ayuu jinigii yidhi haddii ay cajib geliso waan
ku hibayn doonaa. Markaas ayuu ninkii labadii ay watay sheekadiisa ku bilaabay. sayidkii jiniyahow waxaad ogaataa in labadan ay la socda ay yihiin walaalahayga, aniga ayaana 3 ku ah. aabaheena wuu dhintay wuxuuna dhaxal ahaan nooga tagay 3,000 diinaar, waxaana qaybiyey dhaxalkii oo mid kasta waxaa ku soo aaday 1,000 diinaar. aniga qaybtayda waxaan ku furtay dukaan, wax baan soo iibsanayay waana sii iibinayay. walaalahayga xoolahoodii way la safreen, anigoo ugu digayo safarka iyo dhibkiisa si uu ganacsiga safrayda u galaan. waxayna maqnaayeen muddo sanad ah, laakiin waxay soo laabteen ayagoo gacmo maran oo waxba aan haysan. waxaana ku dhahay waan idin sheegay in safarka dhibaatooyin uu leeyahay ee maxaad u safarteen. markaas ayay ugu dhaheen waa qadar alle, maantana waxba ma haysano, hadalna waxba ma noo tarayo. markaas ayaan waday, waxaana geeyey dukaankii anigoo dhar iyo cuntaba siiyey. kadibna waxaan ku dhahay imaqla, waan isla shaqaysanaynaa oo ganacsiyan ayaan sii wadaynaa, sanadkiina mar ayaa la xisaabinaa. wixii faa'iido aan helno waan kala qaybsanaynaa. markaas ayay ii ogolaadeen. muddo sanad kadib markaan shaqaysanay oo faa'iido fiican helnay ayay waxay igu dhaheen aan safarno, waxaa laga yaabaa inaan soo faa'iidno, balse waan ka diiday. wixii saas la ahaadaba iyagana maalin kasta igu hayaan aan safarno ayaan markay muddo ka soo wareegatay ogolaaday hadalkooda. waxaan xisaabiyey hantidii dukaanka taalay, waxayna noqotay 6,000 oo diinaar. markaas ayaan waxaan ku dhahay lacagta waan kala qaybinaynaa, 3,000 waan qaadanaynaa, 7 soo hartayna meel ayaan